sida aan wada ognahay tan iyo shalay waxaa baraha bulshada Soomaalida ku baahay hadal heen ka dhalatay orodyahanadii Soomaaliya ku matalaysay orodka gaaban ee lagu qabanay dalka Shiinaha haddaba su'aalaha ay dad badan isweydiinayaan ayaa ah sidee horta lagu soo xushaa orodyahanada kale ee matala dalalka caalamka waa kan Nageeya Cabdi oo ah orodyahan caan ah oo ka qayb galay ciyaaraha Olombikada isaga oo ku matalaya dalka Netherlands ayaga iska doorta hadda kaliya ayay dhacday Cabdi Bilay u dambeeyay hadda ayay dhacday wiil Khadar Bashiir oo Yuusuf oo hadda la jooga oo aan soo gacan qabtay managerkii iga saaciday ayaa hadda ku orday qualification-kii la iska rabay adduunyada waxay leedahay qualification ayay leedahay saacad ayaa laga rabaa saacadaas 100 mitir ka bilaabanaysa 200 400 waran tuurka booditaanka marathonka waxaas oo saacaday wada leeyihiin ninka saacada sameeyay ayaa tagaya marka Soomaaliya Cabdi Bilay u dambeeyay qof saacad sameysaba saacada ku tagtay marka maxaa dhici jiray Olombikada ciyaaraha adduunka waxay casuumayaan waxay leeyihiin maadaama ka tirsan yihiin ciyaaraha xiriirka adduunka iyo ciyaaraha adduunka Olombikada oo marna 4 sano dhac mar 2 sano dhac ciyaaraha adduunka wiil iyo gabar keensada wiil iyo gabar waxa loo jeedaa iska roon xoogay qualification-kii gaarin taas waa hadda ciyaaraha Olombikada la soo dhaafay wiil iska roon ayaa tagay 500 saacad ma haysan laakiin wuu fiicnaa gabadha Ramla oo feerka ciyaarta ayaa Soomaaliya uga qayb gashay Olombikada aad u fiicneed dhinacyo badan ayaa arrintan ka hadlay haddaba ilaa haatan maxay ay ka yiraahdeen wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegtay inay baaritaan ku sameyn doonto hanaankii lagu soo xulay gabar lagu magacaabo Nasra oo Soomaaliya uga qayb gashay tartanka orodka ee ka dhacay dalka Shiinaha kaas oo ay Soomaaliya guuldarro weyn kala kulantay gabadha kulay sida hadda ma baraha bulshada ku aragteen baanayna ka ahayd horta marka hore waxay ka qayb galeysay sida ay noo sheegeen qoliyaha gabadha halka u diray inay ka qayb galeysay tartanka jaamacadaha oo lagu qabanayay dalkaas China gabadhu waxay ka socotay siday sheegeen jaamacadaha inay mid ka mid ah jaamacadaha dhiganaysa oo dalka sidoo ay ku timid laakiin nidaamka ku timid ee gabadha halka ku tagtay iyo hanaanka lagu soo xulay iyo cidii soo xushayba oo howl aan hadda aan baaritaan iyo guddi aan u saarayno Britol haduu la yiraahdo ayadu qalad ma lahan laakiin waxa qaladka leh ama mas'uuliyadda qaadi doono cidda hawshaas ku abaabushay ama meesha gabadha geysay ururka ay ku midaysan yihiin jaamacadaha Soomaaliya ayaa iyagana dhankooda iska fogeeyay iyaga oo sheegay in aysan jirin orodyahan ay u direen ciyaarahaas bishii July bilowgeedii ayay ahayd markii ay Nasra Abubakar ka soo muuqatay warbaahinta iyada oo dalka Shiinaha uga qayb gali doonto tartanka orodka